نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن أنتي فاطمة مركو علي ودسايي أيكم مسكيتك كسو وضع بحو إسقرب سعود النبي وكيل علي كورا فاطمة هدان كودسو مركابو سيجستو وكحشو دي فاطمة وانكو سيبيودي عروس نواته يسصوت دياري بوكيري وصعدي إن أنتي سيبو نبي قلتك فاطمة أبو وانكو دسيدي ويا دير دستي علي وانكو دسي رضي الله عنها ويا مستوي حشوتي مركابي هذا شعاب ما هذا البوكيري دي علي بعدين دستي ها علي ويرعلو البورين هاي هبينود نوليه هبينكي عندها آد وحوغما أركبي كتري مركاب النبي يقول فاطمة لقد زوجتك وإنه لأقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما بكير فاطمة إنك أنكو قريي وأنك إسلام نمض أمد يدوغو صهر إسلامي وأنك أمد يدوغو علم بدن وأنك أمد يدوغو دلقات بدن برسول كوري بركنتانا قادو قديفتانا قادو ويل كان نبيها كردان صدا عاون وكوهين يا ديار قروب وكيدي سعيد بن الزيد رضي الله عنه اسلام با كسو اشكتوتي maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisi ku darsaday tiri waliba ceelkaana aniga leh iyadu hadda ma la ogow isaga iska leh waa been abuurasho Uthman bin Affan amirka muuminiinta uu yeeray سعيد waa tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamid ah سعيد بن زيد ابو الاعور markaasuu waa laga soo dacwooday Saciidow وياك سو دعوته سلانتا با كاسو دعوته دوقدا او maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iyo la leeyahay oo macal ceelka iyada leh markaas ya amir almu'minin anu waxaan ka maqlay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaatabu nabigu yiri maalinka qiyaamaha waxa lagu cuquubayn doonaa todobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelin loo oran doonaa jiido la kac lamana kici karayo maanu xadiiska nabi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahu haday igu been abuuranaysa buu yiri indhaha ka qaad hadilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaan ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yiri dhulkii uga kacay ha qaadatay bursiya waa in dhabash dam markaas ay oran jirtay way habaarkii Saciid baa igu dhacay way habaarkii Saciid bin Zayd baa igu dhacay ayadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagama soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aas xaq bini aadan ku ciyaar ma ما أنو النبي محمد كم مغلي تاك إن لأجو دول حق الناس نيكا قردركو قاتا تضبط دول بقيامها قرط اللوجلية أو لقوير هذا لك عجيد لما نكعي كربو النبي يقول ما تجيدي كرايو ما أنو حديث كان النبي محمد كم مغلي ما يقول عثمان وين دول بنادنا حق درك كقادا إله هذا يقول بين أبو رني يسيبون ده أنا كقاد هل كان إله كد البوي بني آدم كان قيامها تضبط سنة هدي أجرتي بقول سنة هدات جرتي شري خير واحد أركتي شري خير واحد كهان ليسي شري خير واحد سمينيسي أو لوجو صقر بوك أيا قرط غفل بالله سوريا مركز هالأورندون اقرأ كتابك كتابك أذوق حقه ولبحه آخر الصوت كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا ما أنت هذا اسمه فلانين هذا إسحابي سيدي عدكو حسابي سا ومبهند إسحابي أذوق ما أنت بنك قيامو اسكو حسابي حسابتي سمر قرر وحو صوبحي إنه يهي أهل النار محوسة من مركا واكاس ما يلوس كسوقة بتمجوغا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، إلهي بان ku xamdinaynaa. meel kastoon joogno, xaalad kasta oo aan ku jirno, zaman kasta oo aan joogno, waxaa laynooga baahan yahay marna inaan ilaahay aan halmaamin. allihiina abuuray ee ina jirsiiyey ee nolosha adduunyada inagu deeqay ee waxaa mid kastoo innaka inagamida uu haystana allihii siiyey, dhimashadana ilaahay inagu xakumay, qiyaama inuu jiro laysa soo saarayo lays xisaabayana allah inagu qasbay. allahaasi inaan mar walba aan xasuusanaa oo aan isxasuusinaa. diinteenna wanaagsan ee macaan bayna faraysa. haddaan magaalada joogno iyo haddaan mii joogno, haddaan masaajid joogno iyo haddaan suuq joogno, haddaan safar nahay iyo haddaan nahay xadar, haddaan yar nahay iyo haddaan weyn nahay, dhammaanteed ilaahay waxuu nagu addoonsaday inaan ilaahay aan aaminno oo ilaahay aan caabudno, ilaahay ka cabsanno. ilaahay mar walba xasuusnow, ha halmaamin. adduunyadan aan joogno waa daar alikhtibaar, waa layna keenay. waxaad haysatana waa lagu siiyey. waxaad haysata ilaahay ha ku iloobin amarkiisa. in allaha tacaala mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun buu nebigu yidhi sal alla alay slam. ina addunyaa xulwatun khadira, adduunyadu waa cagaar waana macaan. wa ina allaha mustakhlifukum fiiha, ilaahayna adduunkan maaragtaan ininkuu inagu dhex abuurtay oo in qaarkiina way ku dhex dhimanayaan, qaarkiina way dhalanayaan. fayanduru kayfa tacmaluun, sidaad adduunyada dusheeda intaad joogtaan aada u camal falaysaan buu ilaahay eegayaa. nolosha adduunyada si aad u gudanaysaan baa la eegayaa. ma sidii ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka ahaa baad ku gudan, mise si uusan ilaahay raalli ka ahayn baad noloshaada ku gudan. dukaan ninka furtay habeen walba wuxuu rabaa inuu macaash la soo hoydo. ninka tagsiilaha ee gaadhiga tagsiilaha magaalada dhexdeeda kaga shaqaysanaya ama baslaha, habeen walba wuxuu rabaa masaariif iyo macaashki inuu la hoydo ayuu rabaa. habeenkuusan waxba la hoyan waa khasaaray ugu taagan tahay isaga xaggiisa. hal maalin keliya oo ninkaa gaadhiga watee tagsiilihii uu waxba la soo hoyan waayuu ka murugoon oo uu ka calaacali. 70 sano, 60 sano, 100 sano, 80 sano ayaa ilaahay adduunka kugu siiyey fursad. banka qiyaama markaad tagteed haddii lagaa idhaahda ka waran 80kii sano ood ku soo khasaartay. khasaaraha ifka qofka soo gaadha waa laga kabaa, laakiin khasaaraha qofka aakhiro soo gaadha cid ka kabaysa ma leh. faman haqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaaziinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun. walciyaadu billaah. khasaaraha ifka qofka soo gaadha waa la kabi. aqalba ayaa lahaa, aqalkiibuu daad ka qaado uu dumay, waa loo dhisi.
tacliintiibuu ku dhacay si kale unbuu haddana u noola nolosha u dabiran tijaarad buu lahay oo tijaaraddii baa ka baaba'day dib baa laga yaabaa inuu isku soo qabto oo gacan la siiyo la caawiyo laakiin banka qiyaamo qofku markuu yimaado haddii la yidhahdo hebel uu khasaaray oo 70kii sane 60kii sane adduunyada uu joogay uu ku soo khasaaray haddii la yidhaahdo khasaarahaasi cid ka kabaysa male qofkaasi nicmataani maqbuunun fiihimaa kaiirun min annaas alsixatu waalfaraaq buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba nicmadood oo aada u waaweyn ayaa dadku adduunka intay joogaan ay maaragtaane ku dagman yihiin buu nebigu yidhi labadaa nicmadoodi waa firaaqa iyo caafimaadka weeyaan laba nicmadood oo waaweyn ayaa dad badanoo maanta adduunka jooga hoos maraysa qabna fulaan maqbuun macnaheega waxay culimmadu ku macneeyaan culamaau luga badaacaddii magaalada lagu iibinayay $100 ayaad ku farraqdood ku iibisay $10 laba shay oo keliya markay gacantaada ay ku hadhay ayaad ogaatay badeecadani inay joogto $100 meelaas ka soo qabata ma haysaa markaa wixiiba gacantaada way ka baxeen labadaa nicmadood buu nebigu leeyahay dad badanoo maanta adduunka jooga way ku dagman yihiin alsixatu waalfaraaq caafimaadka ilaaha ku siiyey intaad caafimaadka haysa ilaahay caabud iqtanim 5 qabla 5 5 nicmadood intaad haysatid buu nebigu yidhi 5 ka hor jeeda 5taa nicmadood intaysan kugu dhicin uga faa'iidaysa buu nebigu yidhi sal alla alay slam aakhiradaada firaaqaka qabla shuglika intaad gacan bannaan tahay ee wax ka mashquuliya weli aanad helin firaaqa ka faa'iidayso haddaad berri aad mashquul noqotid firaaqa maanta aad haysatid ma haysanaysid intaanad mashquul noqon ka hor firaaqaaga uga faa'iidayso intaanad ka mashquulin ilaahay taacaddiisa khinaaka qabla faqrika intaad khaniga tahay ee baahidaadu ay urursan tahay ee xaajaadkaagu ay ku daboolan yihiin intaynay baahi ballaadhan kugu dhicin oo taacadda ilaahay ku seejisana khinadaada uga faa'iidayso sixataka qabla saqamika buu nebigu yidhi intaad caafimaadka haysayd caafimaad qabtid intaanad bukoon ka hor uga faa'iidayso nicmadda diinta iyo daacadda ilaahay uga faa'iidayso xayaataka qabla mawtika intaad nolosha aad haysayd weli aanad dhiman mar haddii dadku ay dhintaan waxay odhanayaan ilaahowna celi laakiin cid soo celinaysa ma jirtee inta aad nooshahay intayna geeridu ku iman nolosha geerida ka hor ka faa'iidayso oo noloshaada geerida uga sii faa'iidayso ila mar haddii la dhinto camalkii uu go'ayaa camalkii adduunyada lagu soo qabtay abaalkiisii baa bilaamaya marka la dhinto shabaabaka qabla haramika intaad dhallinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay iyo uga faa'iidaysa intaynan da'du kugu imanayd aanad gaboobin intaanan lagu qaban ee mowdku ku qaban ka faa'iidayso dad baa marka la qabtay baraarugayaan xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa waakun min alsaalixiin walan yu'akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluhaa wallaahu khabiirun bima tacmaluun xataa idaa jaa ajaluhum ajashoodu markay ku soo xaadirta baa ilaahay yidhi ama midkood ajashu markay ku timaadda wuxuu odhan doonaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib ilaahow in yar haddii ajashayda dib loo dhigi lahaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa sadaqadaysan lahaa oo dadka war wanaagsan ee suusuuban baan ka mid noqon lahaa waxaa la odhan doonaa walan yu'akhir allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa naf haddii ajashu ay ku soo xaadirto dib loo dhigi maayo baa ilaahay yidhi saacaddeedii hore loo dhigi maayo dibna loo dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo qabrigii baa haddana la geeyey qabrigii markuu galo waa ka odhanaya rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan rabbi irjicuunii ilaahow celiya igu celiya adduunkii maxaan ka soo qaban ma beeraan soo falan ma ganacsi baan ka soo shaqayn ma suldad iyo siyaasad baan raadin may lacallii acmalu saalixan haddii adduunka maanta la igu celin lahaa oo mar la ii qabashayn lahaa waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan ka soo shaqayn lahaa salaadaan tukan lahaa soonkaan la iman lahaa sakadaan bixin lahaa sadaqadaan bixin lahaa
والد كانوا سمفل لها جارك حقيسان إلى لله وناك بكسو شقي لها وح وناكس هذا بنكي قيام الله كاني حوليه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بنك قيام الله كاني وحوليها إله يوم ما أنت حقيقة دي بان أركي مقل كيبا إيه فرمي وأرقيبا إيه فرمي ومقل كي أدويدات كوكبت مقل مونا نهين ما مقل صح ما هين هذا حق أنا مقلين مقل كاغو ما شقينا يكدي كنت أو حريا أرقنا دون كدوشي ذا إلهي كوكسيي هذا حق أنا تكو أركينين ونلاشنا أدويدا نلاشا كدن بيس أنا أركينين نظام كان عالم كو الصعدو هذا قدرة إلهي أود إلهي أنا تكدح أركينين ودتك دمنا يتكو عبرة قادنين وكفقير قاد فقري سكو عبرة قادنين وكبوكتانتي سكو عبرة قادنين وكاللحاتك سكو عبرة قادنين أرقاقو صحمة هنا وحكا لا دركيسي ربنا أبصرنا هذا إله عنده النود الله عينه أن أرقنا حقيقة دي مقل كينا هدو نوشقين يا يون مقل كي ربتي أن مقل لي إله أدونك دوشي دي نقو علي عمل وناكسن ما كسو شقينينا إنا موقنون أنكم ما أنت وحانا هاي كوا يقينسن إلهي إلا كلن كيسو حق إنو يحي كوا قرانيا آيا أنها إله أدونك نقوع اللي بإليه مما قاشن يقولي قفل سمع شيء ما سمعنا في آبائنا الأولين أدونك مر هدي اللقاء بحلقوا ما صنعوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عقلك ما أنت أدونك تدخل لقو شيء يلي وعقلاء وخبراء وإندرقرته محو قرتا بقولك سنة سو سعود هي اسبدل كجيسك أفريقيا كدعيو كفالوضع صلاة الصبح ما تكذا ما تكذا ساعدها إلهي سمد أدوية وإيمان وليه يا وحي ويديسن هنسية ما يقانايو ما كعايو إلهي سما بريا مي لكن هو بروفيسور خبير إندر قرطو هو يقانا سبدل كجيس كأفريقيا كفالو ذا عقلك هداد كو قرن ويدي الله يكو أبور عقلي ماها عندها كان هداد حقيقة كو أركي ويدي إن أرقي صحدا ماها قلبك هداد إلهي كو أبو رئات كو آميني ويدو معرفة إلهي قلبك أي كو دقي ويدو قلبك من نولا وقودنتين مقالك هدينا حق أتكو مغلين وحق مركا لغو شاك أنا جوك سنين وحق أتكو دقي سنين وحق أدور رارعينين مقالك ما شغين يكدقانتها لكن مالين بو شغين دونا يوم القيامة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن تشركوا به وإن ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم صمع وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير ربنا ereygan rabbana uu soo noqon doona meel badan quraanka ajasha marka iimaanaysa rabbana buu qofku leeyahay qabriga marka la dhigo rabbi buu leeyahay baka qiyaam rabbi buu leeyahay naarta dhaxdeeda rabbi buu leeyahay wanaadu ya malik liyaqdi alayna rabbuk wanaadu naarta dhaxdeeda ka dhawaaqayaan ay leeyihiin ya malik wa malaga furaha naaraha ayay ku leeyihiin rabbiga noo weydiin qudhahana kaga jaro han iska dhimanay meesha ku jiri kari mayne أفرت سنة كذب وجواب يوليه قال إنكم ماكثون مد ما نيسان هديتو لهالكابات كنا جانسان والعياذ بالله
آخرة انت سوجر بي أرنا ينقالوا ربنا 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 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ربنا وصنع نغنسا الدون كدوشيدا هدي مركلية لغاهلي لها إنا ترادي يا ربي ربي جاي الله الدون كدوشيدا هدو قفك إلهي كو قرن لها قرشد إلهي الدون كو قرتا آخرة في عدونتي وقو أما قرشد خلقك بنك قيام إلهي كو قرن دونان ما شقينيسو تيبا شقينيسا قرشدي الدون كدوشيدا أي كلي مادين صلاة دي الدون كدوشيدا أي كسو صلادين تصبيح دي الدون كدوشيدا إلهي أي كسو حسين طاعة دي إلهي الدون كدوشيدا إلهي كسو أضعين طاعة داس انت دوني بهالكاتي تاسا بنك قيامة شقينيسا لكن بنك قيامة مركي لك كينو قرشد خلقك إلهي أي وذا قرنيان ما شقينيسي أقو عقلك وحو شقينيا وأنتو أدوية دوشيدا إلهي كبري وعقلك وأقركو شقين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس عقل وفك عاقلك وقفك نفتي حسابية هبين كيبو حساب وتضبات كيبو حساب وبشي يبو حساب سيدا الدكان قال له حسابية الله دونيا إن هذا وقتك أو حسابي سيد نيكا صاحب الدكان كا رئيس مال جيسوا الدكان جيسوا بدع عدوية محا ما أنت يقبحي محا يسوق لي قفك بني آذن كا رئيس مال جيسوا وقتك وقتك نمحوك كوبية هي وسكن هي دقيقة هي ساعة هي مالمو هي أصابع هي بلو هي سندو هي قرون لسكو جيي ودقيقة هبين يا مالين ويا وهبين يا مالين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا maalmahan habeen iyo maalintana iyo nolosha bini aadamku ay ku taagan tahay sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooda ka unkamayaan bini aadankana qiyaamaha 7 sano haddii aad jirtay 100 sano haddii aad jirtay shar iyo khayr waxaad aragtay shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa markaasaa la odhan doonaa iqra' kitaabaka kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside cid ku xisaabisa uma baahnid isxisaabi adigu maanta banka qiyaamuu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogrogay wuxuu soo baxay inuu yahay ahlunnaar muxuu samayn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma joogaa may ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني حرف التمني بو إيمان دون أولا يا ليت وأدوية إنسان جوج إيمان إلهي أضيعه وما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جد كيسي ميان راعو ميان دغن كإسلام كخد دغمو ميان دين إسلام كصدق اتداء نص وصعدو ما أنت والليبان لها لكن خلاف كان خلاف إلهي أمر كيسا هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا هل كان الدكتيب ولا هي ما له سكسو قبتنا مله سيدا نك هبينك نك الدكان له هبينك هو حساب تمي أيا الله دون يا هبينك النفط له حسابيه عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضيه أيا أورنجري نفتي إن حساب أنت لين حسابين عمل كينا شر يا خير واحد قبته مالك ميزان كسر بوق يقلن قاضو صباح دي مركات كعدي إلى قبل كوكو دعاية شركة جينا قر خير واحد سميسان قرأ إيش حسابي هذا الدون كدوش يد اسكو حسابي سد وأدون كدوش يد عمل قاقا ميزان كسارتد
waxaad ku fududaanaysaa xisaabta aakhira ku fududaan الله إنه فضل لي مركا وقت جينو والثروذني إلى هين السي يان ضيعني نجا ما أنت ضد جينا الزمن كان وحيد هذا وقت قال كم كسود له ثم يد هذا قالوا دونا وقتك قيمي سينتهي قرتين يد هذا وقتك والعق هدي ودنا ذا قلبتك ودنا كسرت أي كالونتو وجدك أدمريسي أتكلنتد فرصة هي اللي ميسد وقفون سكوكات تاجو كتل ما طريقي حقه كاحقي ثم ما قالوا ساعتين كتل ما اللي ميسد ويحنا نقول أنت قاريك هالك جوجنا يو وضد الحدة ده وقت ما يقول سعودو كلية وقت قيمه يسيب يفهمين يكو لأن الدنيا دي بيجليين خيرات يا الدنيا دي كجرين الله وأوصى صاري فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مركي أمرك إلهي أي هالمامان براروجينتي لغو براروجيه دينتي markay ka jeesteenay iska dhaga tareen baa ilaahay yiri adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilaahay yiri yaka waqtigoogii halkay galiyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiro dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka dhan ku guumeysanaya ee ku hogaaminaya inagana maanta muslimiintu wuxuu leeyahay qofka muslimka waqtiga halkeen ku soo dilaa maanta إلهي بالها حديث القدس إن آذنوي أفلقاديي أونا إدبايا إن آذنوحو إقود دبايا مركو يري إلهي ويل بو يا شيء إلهي وحو ليا أنو ويل ملهي ومدلين لا من أدل من أدلو كلبانا هاي كلي إن آذن با إلهي ليا وي أفلقاديي وي أفلقادي وحو يقو أفلقادينا يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيدي أقلب الليل والنهار إن آذن habeenka iyo maalinku aflagaadeynaya oo zamanka ayuu caayaya zamankuna ba ilaahay yiri waa aniga habeenka iyo maalinta aniga babadalayo ana keenaya ba ilaahay yiri zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan ku galay waqtiga sidan iyo galay ma yiraadin xasadan ku galay waqtiga halka ay dhigay waqtiga iga jeestay buu kooran waqtiga iga jeestay waqtiga sida ay baday waqtiga iga xun waqtiga fahmi lah waqtigu muxuu yahay ilaahay baa kula yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn oo leey zamanka iga xun zamanka xun zamankii baa iga jeestay waqtigii baa iga jeestay waqtigii baa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyahay zamanku waa aniga amarka gacantaydu ku jira habeenkii maalinta aniga bedelayo oo keenaya amarkuna gacantaydu ku jira kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso كان مدح كدغنا عيد مدحنimada ka qaadi kari mayso كان عزينا عيد ma duleyn karayso كان duleeyana عيد ma cizeyn karayso كان hadeeyana عيد ma weecin karayso كان haleeyana عيد ma hanuunin karayso كان anigu aan khayr aan siyana cid shar u keeni kari mayso amarka yaale الله ba'ala waxba zamanka haflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha oran hebel ba halka ii galay buu yiri maalin mid iska soo saar ya hebel baan magaalada ka maray hebel baan magaaladii u daayay buu yiri haye hebel baan nolosheeda ka xun hebel ba halka ii dhigo sida ii galay zamanka adiga kula hayade ana zamanka sida ii galay buu qoran may sida ma aha qofka muuminka iimaanka la waa inuu umuraha waa inuu yiraahdaa haday dhib ku dhacdana waa inuu yiraahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan oo adduunka lagaga goynaya
hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyana waxaad tidhaahdaa nicmadda ilaahay kuu nicmeeyey hani allaka waan kuu haneeyey hadday walaalkaa balaaye masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaa waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminna zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqa la yeelo abu darda iyo salmaan qiso dhex martay baan nii sheegay salmaan farisi buu ahaa radia allaahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu darda ayuu markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu darda ayuu reerkaa gabdho fiican bay leeyihiine gabadh ordoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo cariisha abu darda ba aqalkii soo galo waa la soo dhoweeyey waa qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abu darda baa yidhi waxaan inantiinaa heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa markaa bay yidhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey wuu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu yidhi saddex kaftankooguna waa dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nebiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas والعياذ بالله دينته وكبح يقف كدور هذا وكبح يقوم والعياذ بالله مركا أبو درداء ويابي قبل خلاص يسقى للسي صدوق الشيء ولا لكي صاحبك سلمان ونسوق يا سلمان وسنا عروس وسكو دياري عروس كوكو نبري ما بأتكينا قبل أنتو الله يسسيو أيا سلمر كابا صحابي أقل يرلو ترتيبين أيه هبين كابا وقل قلاي وحين لعجها إيو دارها إيو تمشد إيو هوتيلada إيو buuraha la iskala dhacay ma macsiyada lagu dhisay maaha nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yiri cali ka waran faatima hadaan ku dhiso markaa uu sii jeesto uu ka xishooday faatima waan ku siiyay buudi aroosna waa taysa soo diyaari buu ka yiri وصعدي إن أنتي سيبوا نبي قلت يا فاطمة أبو وأنكو دسيدي ويا دي دستي علي وأنكو دسي رضي الله عنها ويا مستوي حشوتي بركابي هذا شو أبا ما هذا البوكيري ده علي بعدين دستي ها علي ويرعلوا البورين هاي هبنود نوليه هو هبينكي عندها آد وحكما أركبي كتري بركاب النبي قلت فاطمة لقد زوجتك وإنه لأقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما بكير فاطمة إنك أنكو قريي وأنك إسلام نمض أمد يدوغو سهر إسلامي وأنك أمد يدوغو علم بدن وأنك أمد يدوغو دلقات بدن برسول كوري بركنتانا قادو قديفتانا قادو ويل كان نبيها كردان صدق عاون وكوهين يا ديار قروب وكيدي نقول إمك قبلها وحبكم مدرناه حوما كسبنا سوا تبادن صومالي مركي لسه ويل كي خرج قبضان كبحيان نبي إن أنتي سي فاطمة مركو لسه يقول راعي بركين بوسيي جوجل بوسيي ويل بوسيي بركا جوركا وفضوا ذا كان زمن كان عذاب كان معها أو فضوضا نلاش وي فضوضي جورك هدي الله فضيدية بعلماء دوليهين زينة إن هذا يرد كود عضايات كان هدي جورك الله أتكيو وحال فضوضية وجو زينة دي ولا فضوضية مركا جورك هنا فضيد النديار مونا وسبب تكلية بعلماء دوليهين فساد كان كل ده الله مكرمه جورك أنا الله بديو إلا فضيدية ولي بنا سلمان فارسي بنان قوتاجين هاي ولكن أبو درداء يوسف يا أبو درداء صوب حي مركز سلمان بعدي بشارة وعلى وحي ماشى كدعي
إنا كاغا ورما وان كحشونا يا بودي ورا حشونا إي شيء ما اللي يالي مسوا اللي ديدي ونيو قبادي أدي ولا قود ديدي لكن أنا اللي يسيو عروسة بودي أنا بعروسة مركزو قصلي وحوري كحشونا يا أديك ما هي وأنا قبل وايو علف إلهي أديك وكوك قري علف كاجي سماد الله كاغا قري يا أديك أنو ندح سعودي بودي كحشون أديك ما هبل وأنا إيه والله أديك أن الله كوك بركايو زي ما كان أريتها مدعي لهاي والله أذكر رقم لها صوما وأدير دكته زمان أيك وحال بري ورا أمر إلهي بأدونك السعداء وإلهي قدرين بأدونك كدع وحكى لك كدع مايو مركز زمن كيان وحبا أفلق هذين زمن كان نظام كالزمن كان والنظام إلهي حقي سكسعداء إلهي حدود في عن هدان ليا لأنه نولش أدونك وينوم معانا ما أتددك ودن وحيلي نولش وفهم الآنهي نولش وحنو فهم الآنهي وأمحي حدودك إنك إلهي نور دحيي با ماشا كبحي حدودك هدان هاجاجي سنو نولش أدونك يتاخر إلهي بنو هاجاجين إلهي بقرآن كي سينو وشيغو يري ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغ إلهي كعب صدا أمورتي سؤال وحا كدغنا فضيل من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يري قفك همجي سكدغ الدنيا وحو كفكريا والدنيا وحو كشغينيا والدنيا وحو كسيحنيا والدنيا وحو كسوكعيا والدنيا وحو كهليا والدنيا وحو ايغيا والدنيا قفك همجي سأدنيا وكدغ النبي يري arrimihi soo dhan ilaahay bariga galbeed buu kaga kala sheedinaya nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saaraya faqri waligaana ka baxay baa labada indhood loo saaraya arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kala mehelaba rasuulku yiri waman kanat al-akhiratu hammuhu ninka hamigiisa ka dhigay buu nabigu aakhiro macnaheedu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya salaadii buu ilaalinaya soonkii buu ilaalinaya حقي دتك اسك إلالينيا حقي جارك سو إلالينيا حق دتك لا نول يحب اسك إلالينيا ذنبك ير إلالينيا وناق أيو كشقينيا همجي سو آخره عمل آخره دي سكر داوعيا وكد دكتور يحي عمل آخره دي سبت بعدين ينا ودي ريه قبنا أمر والبا نك همجي سكر دقيق النبي يقول آخره قلبك سا إلهي كدق غني هذا تنما ده قلبك إلهي سيا qofku meesha uu ka noqdo ciidna waa qalbiga meesha qani ka noqdana waa halkee waa qalbiga dagu aan moodin hebel waa milyan dara warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa qinada gelinaya qinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiya arrimihiisa oo dhan ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoos timaada rasuulku yiri adduunyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma adu ku daba socda mise adaa daba socda ya saa ku daba socda har adduunyadu baa leeyahay qofka adduunyadu waa sida harka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa hadaa tiraahdo adduunyada ayaan u jeesan وآخرتي بكجسن وحال لمتها نين يري هاركيغا ayaan soo qabanaya ما soo qaban karist ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بنبي ما هلو قفك هميgiisa adduunya ka dhiga ma helo buu nabigu yiri illa wixii ilaahay u qadaray ma wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay ka gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin waxaad noqotaa bay yiraahdeen culimadu sida doonta waxa loo isticmaalaa bariga mise badda maxaa laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa
oo rukaab iyo badeecan la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi sooma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakar siddiiq radiyallahu canhu maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdillaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaata ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn abi bakr siddiiq radiyallahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socda qaala abaa bakar ilaa ayna wuxuu yidhi waan shaqo tegaya oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay har muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid lawa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walbe iyagu sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygina ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa shuuraynaynay adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddii toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiyo maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abi bakr siddiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibn abi bakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxa adduunyaha maanta anigu dhul baan ku lehay magaalada madiina dhulkaa iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi intay nii soo hadhana ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku aad u qorteen uu reerka siinayay 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxa uu nagula dardaarmay lacagta in halkayga lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo
عمر بن الخطاب الله كان عمر وأويي أبي بكر الصديق وبود أبو بكر وقبري أبو بكر بدول تجع عمر وعود ما ضحى هذيك الدبدا إيمان إيسا والله واد دالسوك وقاري من بوكير وادنا دالسي بوكير سدان أولنا يا أبو بكر وقد إذا وادنا دالسي بودي لبدي السنة دور كي بلاد وطلاد أمده هاي وأنا كيدي كي عليه بيت المال كينتاس حكام الزمن كنا كورما فحاسم حاكيني والله كبق إلهي بكعب سنيين آخرة يكون حساب تميين مركاسا كوجي مدحها حق إلهينا وإلى لي حقوق دي بني آدم كان أساسه كجا إلى لي كوجي فقير كاها حق إلهينا إسلوس كإلى لي حقي ضد كانوا إسك إلى لي وكوجي فقير كاها سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام باكسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سيكودر صديتي ولي بعيل كان عني قالي يدو هدما لأقو ساقا اسكالي وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تاوي يري سعيد وطبعا كي جنة اللو بشاريين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور مركاسولي والله قاسو دعوه يا سعيدو ويا قاسو دعوه سلام تابع قاسو دعوه الضغضة وما حي قاسو دعوتي دول يدو ايليدا هيبات قادتي يا لليه ومع العيلك ايضا يا امير المؤمنين انوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاه والسلام اوله دول اولهين تاكد دول اولهين نك الظلم كو قاتبو نبيغو يري مالك قيامه waxa lagu cuquubayn doona todobada dhul inta silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelino loo oran doona jiido la kac lamana kici karayo maanu xadiiska nabi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahu haday ugu been abuuranaysa buu yiri indhaha ka qaad hadilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaan ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yiri دولكي uga kacay ha qaadatay bursiya waa in dhabash dam markaas ay oran jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay ayadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagama soo saarin halkii ba qabrigeyga laga dhigo lagu aas حق بني آدم كو عيار ما أنو النبي محمد كم مغلي تاك إن لأيغو دول حق الناس نيكا قردركو قاتا تضبط دول باقيامها قورت اللوغلية او لغو إرادا لك عوجيد لما نكعي كربو النبي قولوا مجيدي كرايو ما أنو حديث كنبي محمد كم مغلي ما يقولاتها عثمان وإن دول بني آدم حق درك كقادا إلهو هدا يقول بين أبورين يسيبوا لندهنا كقاد هل كان إلهو كد البيو وحاسوا الله كبق waxa bini aadanka xaqooga ka joojinaya waa maxay والله كبق markaad ilaahay ku xisaabtamayso inuu ku arkaayo oo ku maqlaayo aakhir inay jirtana ay ku hortaalo xaq bini aadan inaad u badheedha ku dhiiran maysid laakiin goormo qofka bini aadanku ilaahay inuu dulmi ka gala bini aadankana uu dulmi ka gala waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro سادرتي ولا ليال إلهي إنها نصر نقولها توبت كأنه إن يربان الدنيا جوجنا إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بريتولي نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبوا ما شق قبرجاك ونقول قبرجاك ونقول كما ورقبنا بركة ولا الوين عن آخرك وحسابتنا آخره ما ديروا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بشيء قيامه ما ديروا حقنا وكادر يحي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارنت وزدوده بعثت أنا والساعة كهاتين لو ذا فرض النبي قسكو درري فردا يا مردسدا يا فرد حذا النبي قسكو قبتي
markaa buu nebigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa farood ay iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqonno han ka baqno ilaahay qulu laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah diinteennana ma aragtaane han ka shaqayno oo shaqada diinta culummada iyo macallimiinta oo keliya ka mas-uul maahinaya jamaacadade qof kastoo muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxeegana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwa ila allah fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya bay dhahdeen culummadu dadkoo ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan muslimkii baa u baahan in salaada loogu yeedho oo masjidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas-uuliyadana xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiga shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambaysee kiina xaadirkee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii faruba muballaqin awcaa min saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunka o dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna ina diinteenaan ka shaqayno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska ka soo qayb gala kulanka diinta waliba xaafadiinnan markasku nii dhow yahay oo marka ilaahay dartii u baxa laynaga yidhahdana ha cabsoonina iska bax waar ma baxayno nin baa waagii dhawda xanuunka korona la bumbuuninayay ayaa adig korona laga helay 14 cisho qolka ku jira muu fadhiyo mise uga baxay wuu ku jiray mid baa la sheegay islaantiisii ku yidhi hay soo dhowaan ciyaalka hay soo dhowaan aniguna socdo 14 cisho u fadhiistay qol dhexdii si uu hargabka uga baxo qalbigeena inay adduunyadu ka baxdo oo caalamada makhluuqu ka baxdo oo zamanka aan ku tacalluqsannahay aan sii dayno oo xariirka ilaahay aan soo adkaysanno 4 bilood inaan masjid dhex fadhino uma baahnin masjidku waa raaxo walibana soo ma hadda intaa ere saacadan wada hadlayna imisa dareenkiinu ziyaadaya imisa aniga dareenkaygu isbedelaya ilaa waxaan ka hadlaynaa waa diine marka insha allah bal yaala insha allah waqtiga iigu dhow ee fursadda iigu dhow inaan bal jamaacadada ilaahay dartii u baxaya 4 bilood 2 bilood fasaxyada aan haysto inaan ilaahay dartii u baxo yaa bal niyoonaya insha allah dhahada للوسائل حكم المقاصد بعلمة ليهم مددا لبحيو ووسائل الدعوة وسائل سيدا آلات كنيمك نقضوا بيسان إنكم مجعلين بريقوا هري لكن برياهن وحيد هذين والله بهاي هيسكا هلو لأنكم نوحي لين صور نحمريا خير ومضى ونشيقنا إن شاء الله هذا إلهي نقا أقبلنا ورجيننا ها قبول يدا مهمة إمسا كل دقيستو كل دعوتي مهمة ها إلهي ما كا أقبله بقى مهمة مسوق سوعشي إلهي هنقا أقبله إن شاء الله هبين دمنا فكر دينك وكسر وضع طيب قالنا ضد بدنا ولا لهنا وحنوسا يا جرو الدعاء دونا سو دعين بين إن شاء الله دنبينا الله داف دنبينا والدينتنا الله داف دينت الله ينوم معنا مرلكنا الله شافي موتاتكنا الله ونحرست أمن إيمانك الله ينوم زيادي طاعة الله ينوم معنا dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada Allah tuso muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqiin midnimada Allah siiyo nin walba loo ku kurbaysan kurbad Allah ka qaado dad badan oo xaadiriin iyo kuwa qaybin oo ducada dalbay baa jiree mid walba loo ku kurbaysan Ilaahu adaaga kurbada Ilaahu ka qaado caafimaad sariic Ilaahu sii khaatimada Ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlaynaa Ilaahu anagu qaban ya Allah noo naxariiso dad noo naxariisan ayaa noo naxariisan أيها الداد نود بدافن أيها نود بدافي أمنك إيمانك إله نواتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين